aad baan uga xunnahay in meydkiina maalin walba diyaarada lagu daabulo waxaad u dagaalamaysaa in aadan ogeyn inaad baydhabo ku dhimataan sharaf idin ma aha dadka reer koonfur galbeed mar walba ay wax samaystaan oo dowlad dhistaan kuwa innaga midibka nala ah luqadana nagula hadlo deegaankana aan wada leenahay baa dowladnimadeenna u soo horkici jiray in la dumiyo lana baabi'iyo hase yeeshee dadka reer koonfur galbeed dhowr iyo 10 sano waxay ku naaloonayeen nabad iyo barwaaqo iyo dowladnimo iyo midnimo iyagu ay leeyihiin iyagu ay samaysteen iyagu ay taladeeda lahaayeen labadii bilood oo la soo dhaafay shacbigeenna sidaan horeyba uga digaynay waxay la kulmeen cadaadis hadday tahay dhanka dhaqaalaha amniga iyo horumarka arrimaha bulshada intaba horebaynu u sheegnay waxaan nidhi waxa loo socdaa Cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed maaha waxa la rabaa waa burburinta jiritaankiina ummadeed dowladeed iyo deegaan ahaanba waxaan naloo soo minguuriyey dhaqanaan innagu aan lahayn dadka Soomaaliyeed aan lahayn oo macnaheedu yahay dadka reer koonfur galbeed isma maamuli karaan isma xukumi karaan wixii ay samaysteen hal laga baabi'iyo iyadoo ujeedaduna ay tahay in la qaato khayraadka koonfur galbeed Soomaaliya mid ka muuqda ee bannaanka yaalla iyo kan dahan ee dhulka hoostiisa ku jira sidoo kale waxyaabaha dadka duulaanka ku soo qaaday koonfur galbeed Soomaaliya ay waqtiga badan geliyeen waxa weeye sidii gobolka Shabeellada Hoose oo dee wax walba Ilaahay ku manaystay looga jari lahaa koonfur galbeed loogana dhigi lahaa degmo ama tuulo ka mid ah gobolka Banaadir walaalayaal haddii dad wax loo sheegay hore aan u sheegnay markay xaaladdu jiq noqotana waxa uu maslaxada ummadda yaqaana dadka cilmiga iyo aqliga u saaxiibka magaaladii sharafta lahayd ee magaceedii gaarka u ahaa magaalooyinka Soomaaliyeed oo dhanba loogu magac daray Baydhabo Jannaay waan ognahay 12 sano la soo dhaafay dowladnimadeedu halka ay gaartay dadka Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan dalxiis iyo majarasho u imaan jireen subaga iyo caanaha dhayda laga daabuli jiray maanta waxaa la yiri bandow hal la geliyo dadkeenu markii horeba waxay la dhibanaayeen labadii bilood oo la soo dhaafay lacagtii shilin Soomaaliga ahayd ee masaakiinta ku noolayd oo qudaarta iyo caanaha iyo nacnac lagu gadan jiray in laga joojiyay magaalada Baydhabo shacbigeenu ay la dhibanaayeen maadaama Soomaaliya aysan lahayn lacag iyadoo ay leedahay waxa loogu daray dadkeena in raarkiina aysan shaqaysan karin hadlaheena suuqa lagu jiidiyo qaadkoodii la qaato maqaayadahoodii inta la gala la boobo raashinkooda la iska cuno lacagna aan la siinin xabad lagala daaro aflagaadana ay u dheertahay sidoo kale waxaa la sameeyey Soomaaliya sidaan ognahayba dadka Soomaaliyeed shacbiga Soomaaliyeed dhammaantood waa wada hubaysan yihiin qoryahoodana guryahooday ku haystaan iyagaa soo gatay dowladii maynan siin waxaa kaloo la go'aamiyey in shacbiga reer koonfur galbeed gaar ahaanna shacbiga magaalada Baydhabo qabaa'iladooda lagu amro inay dadka soo wareejiyaan oo ay gacan dowladeed soo geliyaan sida iyaguba sheegeen iyadoo ujeedaduna ay tahay in shacbiga reer koonfur galbeed gaar ahaanna reer Baydhabo hadday tahay dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalamo hadday tahay horumarka lagala dagaalamo hadday tahay nolosha lagala dagaalamo sidoo kalena hubkooda la rabo in la dhaco dabadeetana loo raro magaalada Muqdisho shacbiga reer koonfur galbeed oo reer Baydhabo waxaan idin leenahay hubkiina idinka iska leh idinka gatay qoriyiina ammaankooda idin xiraayeen dowladuna way idinkaga warqabtay marnaba yaan la ogolaanin in hubkiina la qaato diyaarado lagu raro la geeyo magaalada Muqdisho marka ugu dambaysana idinkoo masaakiina shacaba la idin qabqabto sidoo kalena la idin dulaysto walaalayaal waxaan qoryaha u qaadnay waxaan u soconoo duurkan ugu jirro hal ujeeddo keliyaynu ka leenahay aabbayaasheen baa dhowr iyo 20 sano ka hor soo diiday deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya in bannaanka loogu soo duulo dadkeena la dulaysto iyagaa hore u diiday waxay aabbayaasheen walaalaheen shalay diideen annagana qarnigan 21 ma ogolaanayno
عد والبو أوريا سنوها ما أنت كوفر قلبك كسعودنا تاريخ ذا إسقوري دونتو ما لنا المعلومات كمية أي دوغان دونتو ولا ليال كوفر قلبك حيثكلا دكتور كوفر قلبك لو مميرين كرو وحمال كلا لغا سو غورينا ددكنا لغما خاصي كرو kuwa maanta u arko waxay ku dhex jiraan inay dadkooda duleystaan iyagoo taagan qayb ka mid ah inta diyaarada lagu qoro magaalada Muqdisho xabsiyada Muqdisho ay la ciiraan oo wixii shalay ay dadkeenu ka dagaalameen anaguna maanta aan ka dagaalamay dowladda koonfur galbeed magaalada Baydhabo waxay ka dhistay xabsiyo qurux badan oo dambiilayaasha amniga iyo kala dambeynta diidana in lagu xiro dowladdu ay diyaarisay taariikhda waa markii ugu horeysay ee dowladda Soomaaliya burburtay shacbiga reer Baydhabo iyo shacbiga reer koonfur galbeed haday khalad geystaan oo dambi geystaan in la yiraahdo Baydhabo xabsi kama dhisna baraawiya markana kama dhisna xudurna kama dhisna reer koonfur galbeed gaar ahaan reer Baydhabo waxay leeyihiin qofkii dambi gala in loo qaado magaalada Xamar la geeyana xabsi ayna dhaqankooda aqoonin dadkoodana aysan joogin raashin iyo saadna aynan ka helaynin in halka lagu cadaabo dadkeena hadaad ogolaataan dowladnimada maanta laydinku hayo hadaad ogolaataan burburinta dowladdiina maanta lagu hayo berri baad ka shalayn doontaa annaga iyo ragga qoryaha u qaatay ee daraawiishta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya oo ka dhiidiyay waxa dadkeena maanta lagu hayo berrina ma ogolaataan waa soo diinay maantana waa diidanahay berrina waa diideena dadka reer koonfur galbeed sida walaalaha iyo Soomaaliyeed maadaama dalkeenu uu federaal yahay iyagu way isu maamulayaan galmudug ay galmudug maamulanayso jubbaland ay jubbaland maamulanayso puntlandna sidoo kale ay isu maamulayso hirshabeellena sidoo kale ay isu maamulayso somalilandna sidoo kale ay dowlad u tahay ayay dadka reer koonfur galbeedna xaq u leeyihiin inay shu'uuntooda gaarka ah iyagu ay maamushaan haddaad diidaan sarraynteenna annagana gumaysi waa diidnay reer koonfur galbeed iyagaa iskale iyagaana dhisanayo iyagaana baaqi ku ahaanayo ilaa maalinta qiyaamaha cid walbo duulaan ku soo qaatana ma inta ay joogayaan waa maalmo kooban waxaan leenahay isaga laabta Baydhabo weligeedba ku soo duushay kamaynan gaarin libin la yaqaano khasaare iyo hoog iyo halaag waxaan ahayn kalamaad kulmaysa ciidanaynu leenahay abayaasheenna ka soo gaaray awoowayaasheenna ka soo gaaray iyadaan dhaxal wanaanahay haddaan miyi ku noolahay iyo haddaan magaalo joogno iyadaan leenahay tanaan ka soo baxnay tanaan ku noolaanaynaa tanaanna ku dhimanaynaa annagoo sharaf leh madaxeennana kor u taagayno cidna aysan nadambaysan karin koonfur galbeed waxaa iskale reer koonfur galbeed iyagaana maamulanayo iyagaana u dambaynayo dadka Soomaaliyeed ee bannaanka laga soo qalday gaar ahaanna saraakiisha Soomaaliyeed ciidamada dhalinyarada Soomaaliyeed oo la yiri Baydhabo cadow ka jira ee kaaliya ku duula waray Baydhabo cadow ma joogo dad Soomaaliyeed oo reer koonfur galbeed ayaa degan Baydhabo iyo koonfur galbeed iyagaana iskale aad baan uga xunnahay iimaykiina maalin walba diyaarada lagu daabulo waxaad u dagaalamaysaa inaadan ogeyn inaad Baydhabo ku dhimataan sharaf idin ma aha ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxa loo aasaasay waxa weeye inay ilaaliyaan sharafka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xuduudaha dalka Baydhabo furun dagaal ma aha 2003 oo ciidan in lagu soo daabulo dadka reer Baydhabo waa diideen walaalayaal idin ma haysano ciidamada qalabka sida dadka lagu tilmaamo Baydhabo ka dagaalamayo wixii idinku dhacay waa idinku dhacay waa ka xunnahay ciidan annaga iskala annaga u harayno idinkuna Baydhabo ku baabeen halkii aad ka timaadeen waa la idin soo qalday walaalayaal halkiina ku laabta kuwa walaalaheenna oo magaalooyinka laga soo daabulayo Baydhabo yihiin taariikhdu waxbay qoraysaa shalna waa sheegnay maantana waa ku celinaynaa qoryihiina amaanka ka xirta haddii idinka la idin adeegsaday dadkiina la dagaalantaan ilaahay idinkii annaga idinka dulqaadayna waana idin la dagaalamaynaa dad cadowgeena la soo safrteen dad garab taagan tihiin haddaad dulinimo ogolaateen kuwa idin soo kaxaystay iyo idinkuba isku mid baad nootiin waa idin la dagaalamaynaa haddii ilaahay shacbigeena sharafta leh ee reer koonfur galbeed meel walboo dunida kaga nooshihiin garab istaaga ciidankeena diida dulinimada maanta laydinku hayo berri baad guulaysanaysaan berri baad guulaysanaysaan annagoo wada jirraa guulaysanayn
annagu waa diinay dulinimo idinkuna diida ilaahayna waa diiday